جنة حبيب جاي حسوسي قريت راسي عالم تدي حاجة ذاتك شيخ waxay sida qolka u soo galaysidna inay inan ku jirto soo ma ogidna la raaxayso ay ku beerto aad uga ayaan ku keenay markin daawad yaa musaafir daawanaysan waxa lagu isticmaali kartaa okay in yar ma la joogtidna fursadaas ma hayo in martidi ma baxday mar hore talo ninku ma wuxuu ka cadhooday intii yareedan ku dhig maxad qolka u soo gashay wajigiisa dhan wuu isbedelay maro sebda iga raali noqo cali waxaan inaan ku raali geliyo haddana habeen wanaagsan aniga ku talagaliga ma yahay aniga gacanta iga dhacday waan ku bariyaa iga raali noqo xumaana iga fahmin علي وحنا وقرارة قعنت هذا كدا أنا كنت لقى ما هاي وكبري يقرأ وأنا قاعد كنت لقى إنسان كاين ها علي أنا كنت لقى ما هاي وصل بكل سيودعين وحنا نواشل iskada aniga ururinaya gacantaada ka ilaali بشار maxaa shaqada uga tagaysaa khalad miyaa lagaa galan waad ogtahay anaga inaanan dulmiga jecleen ii sheeg marka sababta caliya ballanka qaadi baani caliya ballanka qaadi fiidaad waa maxay caligan la sheegayna muxuu anaga caligan yuu yahay oo anaga arrimaheena soo faragashanaya mise wuxuu doonayaa dartiis inaan shaqadeena u dhaafno caligan waa caligii xaafad degnaa sheekhu isdhiga wuxuu yahay mana waa faataano adiga ma taqaanaa ninkaas aqoon u leeyahay adiga ma aragta ninkaas maya duuli aniga magaciisa kaliya maqal ma arkin beelo waay hadda si fiican la isku baranaya
furno albaabka waa ku baryayaa danteeda ma hayn niyadda inaan kaa dilo iga raali noqo sababtaa waa ka xumaa maadaama qalbigaan kaa dhaawacay baashaan aad iga jebisay sida indhayga nuurkooda aan u ilaaliyo kale ayaan u ilaalin jiray markay dhulku ku dhacday ay jabtayna aniga waa miir bele waxaan ku hadlaya wax kalma kala weyn anigoo 6 jir ah maalin ciid ayay ahayd aniga iyo walaalkeena hooyaday barafka ayay balooni noogu samaysay aad baan u faraxsanayn labadeenaba subaxaasna subax iga farxad badnaa ma jirin laakiin farxadda la sheegaya maalintaas ay ugu dambaysay sababtoo ah waalidiinteeda ayaa meeshaas ku waayay markaas kadib walaalkay xerada agoonta ayuu ka soo baxsaday wuxuuna horey u qaatay hadiyadda ee hooyo isaga siisay hooyana hadiyadday walaalkay siisay anigana way igu doonsiisay oo waan ka qaatay waxaana ku rajo weynaa maalintay noqotaba baashaan darteed inaan walaalkay kula kulmo baashaan aragtaan dadka kale wax caadi ayay u arkaan balse aniga xaggayga qaali ayay ka hayd hamigaygana wuxuu ah maalintan walaalkay la kulmo inaan tusiyo oo aan dhaho fiiri hadiyadda hooyo noo keentay ayaan xafiday anigana walaalkaa ayaan ahay laakiin hadda hadiyaddan walaalkay ku heli lahaa way baaba'day daawadayaal mustaqbalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV waa habeen saq dhexe iska seexo mar labaad ayaan ku raalgaraynayaa cali iga raali noqo aad ayaan uga xumaay waxa ku soo gaadhay si aan hadiyadaadii kuugu soo celiyay wax walba waan u samaynayaa waa ballan laakiin ugu horreyn gacantaada way dhaawacanta waxaan laga yaabaa inay quraarada gudaha ay ugu jiraan markaska eeg dhaawac sida weyn ma gaarin aan isku mashquulin
orod seexo habeen wanaagsan daawad yaa mustaqbalkan aad daawanaysaa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV meesha halkan ma mis meel qaldan ayaa dhigeen mudana meeshan waa haa caliga marka calin dad kale saada masaajid kale jira okay adi maxaad kaalin taagantahay oda masaajidka aad shaqadaad ma qabsatid oo ninkaas iigu soo yeertid halkaana iigu keentid bax soco waay mudana kasta isuk mudane waxaa hilmaan surwaalkii weesa malano masaajidka ma geli kari dhageys adiga soo matid ninkaas dartiis shaqadiisa uga tagaayin maxaad halkaan la taagantay hore shaqadaada soo qabso dulliyo waaba doqone mudan masaajid waa xiran sidee ku xiran yahayna maxaan ka ogaa fiidaad masaajid xiran miyaa jira saacaddan maxaan ka ogayn aniga dulyo ma ogid miyaa hadda ogaanaysa hoy kaas bashiir maaho warya hoy bashiir kaali maxay ka rabaan kuwan macalin sheekh caliyay jireen kuwan kaali xilliga maxaa iska qabanaa meeshaan ciisha mar hore ale dugti alla laga soo baxay yaa goormuu imaanayaan goormu imaama itiri salaada fajiras wuu imaanaa markiis dugtana dukaankaas aadaa kadib imaam yaa dukaan gadana yaa imaame imaamka masjidka ayaan ka hadlaya shacadi maa imaam malinosa imaam maaha ninkaas imaam ma aha miya sidaa camal bashiir makuu sheegi miyaanis imaam ahayn haddana meeshaan iskaga taga ya socdaha waqti waa dhammaadee aween wanaagsan macalin ما aragteen cali saaxiibada sida ay u yaaleen yaa ku dhahayna saaxiibadiisa waa hooy wada jeeda xitaa waxay kala saari lahayn inuu imaam yahay iyo in kale hoy naagtaada maxaa ku daray shacali maxaa ku daba dhigaya akhay yaa qodagayga adiga waxaa fahmaysa habeeraati maba jiraan eeberaad sahaan ku dhahay yashaarow hadda maxaan kugu sameeyaa sideen ku yeelaa hadda bal ii sheeg ninaan iimaan ahayna saa noo soo wada masaajidka dartiis noo keento ii sheeg maxaan kugu sameeyaa wallahi maalinta soo la markaa safka hor ku dukaan argsaasa ima uu malay wallahi dhaartiyaan ku dhahay sameeyana sheekh cali ala dhaysaa darteedan ku dhahay adiga ninkan iska siidii ninkaas cali allahna gurigiisaan ku waranaynaa meeshaan ugu dhammaynaynaa ifaanti adiga doqon ayaa tahay wax xun maahina talo fiican adoo keenaysid weligay ma ku arka kaale baxar miyaa rabtaa inaan geliso hasnayahay waa kana war annaga ninkaas oo tagaynaa si wanaagaan ugu tagaynaa waxaan leenahay shaqadeena faraha kala bax ganacsigeena maxaa ku daba dhigay ii sheeg shaqaalahaygana maxaad iigu soo diraysaa leeyahay mise xoolo aabbaha uu leeyahay annaga ka ganacsana war annaga waxaan gadayna qofkii rab ha qaato qofkaan u baahnayn ha iskaga tago wax khasab lalahay miyaa jira annaga dadka waan ixtiraamnaa weliba waan xushmaynaa laakiin ma oggolaanayna riyadeena in laga burburiyo marnaba saaxiib soo sidaas maa namariya adiga xaggee u socotaan hadda wixii ka dambeeya mana la shaqaynaysa bax soco soco waryaa baxaan ku dar
هاي ولا شيء ميران ورما ما خشمانت كي شيخ أهانه gurigiisa gabaraba laga raadinaya ka waran hee labalabii id aroosi lahaane waa maqla yaaqe weligeed yaa ka soo bixin guriga ku jirto yaa guriga ku jirta ay ka soo bixinin laakiin hooyo nakeen haye marka la xanta gaarsiina ballan waayaan ku dhahay markaa ilooba hay waa sii baxaya hay wala shay mac salaamo hooy maxaa waxa ku hadlayso habeen saqdha aniga wax qaldan ma ku hadlo maxaa dhacay yaaqadi wiilkayga wax badan kaama maqnaanaya laba habeenoo keliya laba habeen mataqaanaa caawaa la jiifanaa beritaa la soo kacaa habeen kale la jiifanaa waa la soo kacaa oo keliya intaasaan kaa maqnaanaa okay wiilkayga waxaan ka codsanayaa ayayda inaadan marnaba dhibin ya okay okay bravo tam bravo wiilkayga daawadayaal musaalkan aad daawanaysaa aan fiiri gaariga xooga uga shalraan ka waaya mudan okay أنا بير مسؤولية تسكسر. كالي ملكي كالي مركم بيسي أنا بصفي عن قوسي لباحقي أرد فول قارية أنا باشا كوعيا أنا أسوق هذا ماي قاري سي كله أنا ودونا إسكدا هذيك أوكي ملكي أنا كوكينا مايا 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 طلع maxaa dhacay مايا مايا علي 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 maxaa kugu dhacayna علي مايا هيدا فوقان هيدا فوقان اقرا لنا واي waxay roobiyaan ku keenay ikaadi على بيها نعب waxaan u malaynayaa cali inaad riixun aragtay soo sax maaha waqtiga salaada la gaaray ninka dhib ayaa haystaan u malaynayaa cali dadka way baxeen cali waxaan u malaynayaa inuu hurdo
waxaan islaa diidan darteed walaalkaa ku hel laakiin hadiidan agteedan qaali ayay ka tahay waxaan islaa walaalkaa markaad aragto hadiidan ma xasuustaa waa hadiida hooy ee labadeena siinaysay inaan dhaho kadibna inaan u sheego walaalkiis inaan ahay waad ku mahadsantahay wax walbaad ii qabatay ilaahayna qar ha ku siiyo mar walbana aniga waan kuu ducaynaya وكالي يا كالي كالي هوردي كالي يحرق الباب كده كالي استاجير هوردي كالي كالي هوردي كالي نعسيو كالي استاجير سوك انا شنو يا كالي daawadayaal musaalkan aad daawanaysaa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV maxay ku dhacay aniga maya nimankii niman ayaa halka soo galay aawen isteji raggeed ka hadlaysaa ragga xaliya u shaqayn jiray aan ku weydiiyey riixun miyaad aragtay maya niman ayaa halkan soo galeen kadib aniga way isuuxiyeen waxaana iigu miir dambaysay anigoo sii suuxaya way soo galeen nimankaas adigana waad maqnayd laakiin meesha way joogeen bay hadda meeye murugta iska daa intaan aniga kula joogo cid wax ku yeeli karta ma jirto sidee runaantii qoraalkaaga waan akhristay si niyad haddaad u ducaysato ilaah wuu ku aqbalaya daawadayaal musaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV